saaxiibadii wada socday ee dagaalka qaybta ka ahaa gobolka bariga dhexe waxay u muuqanayaan inay kala shakiyeen hogaamiyaashii wadamada carabta gaar ahaan kuwa qaliijka ee saldhigyada uu ku lahaa Mareykanka waxay dhaleecaynayaan Trump waxana ay leeyihiin dagaalka isaga bilaabay qasaraha ugu weyn wadamadeena ayuu ku dhacayaa muddo dheer ayay aamusnaayeen laakiin hadda waxay u ekaadeen in ay isqarin la yihiin wadamada carabta dhigbax dhaqaale iyo waliba burbur hantiyadeed oo weyn ayaa soo gaartay waliba dawladda Washington waxay ka macaashtay inay ka gandaalo aad u badan oo ah nidaamyada difaaca taas oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo wadamadaasi haddaba sidee wax u jiraan dawladaha cabanaya ilaa iyo hadda yaa laga yaqaanaa Saudi Arabia iyo Qatar maxay ganacsaceen maxaa sameeshay yaala warbixin gaar ah ayaan arrintaasi ku eegaya khiyaarta ay nala socotay dawladda Iran mas'uuliyiinteeda ugu sareeya si cad ay u sheegeen in la jabiyo Mareykanka iyo waliba nidaamka Israel waxay hadda ka dambeeyeen dawladdaasi aysan qabin wax weyn oo walaaca talabadan waxay ku soo aadaysaa iyadoo laga baqayo maalinta Isniinta ah in dagaalka gobolka bariga dhexe mar kale uu dib u soo laabto asaasaan ayaa muuqanaysa annabad aan door ku lahayn dhaxdhaxaadyaashu wali waxay doonayaan inay isku soo dhaweeyaan dhinacyada loolamaya laakiin lama oga sida uu ku dhamaan kara xaalka gobolka bariga dhexe hormusna dood adag ayaa ka taagan marinkaasi istiraatiijiga nidaamka Israel waxa ay aan iraahdee dawladda Mareykanka gaar ahaan ciidamada taliska dhexe waxay baahiyeen qariirad cusub oo ka mid ah gobolka bariga dhexe waxyaabaha ay soo bandhigeen waxaa ka mid ah daanta galbeed iyo magaalada Gaza oo dhulka Israel raaciyay waa aqbalaad dadban oo dawladda Washington ay doonayso dhulka Falastiiniyiinta markan in loo ogolaanayo in ay si rasmi ah loogu wareejiyo nidaamka Israel aqalka cad war adag ayaa ka soo baxay wargeyskada Washington Post ee sheeka xasaasi ayuu qoraya isla galay Allaha carabtuna waxay u muuqataa markan karka waxa ay qarsataba in ay hayn laadahay kuleylka si xoogaysanaya qaar ka mid ah dawladaha Carbeed ayaa salugay hanaanka dawladda Mareykanka ay u sii horinayso dagaalka ka dhanka dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran mas'uul sare oo ka tirsan dawladaha qaliijka ayaa waxa uu yiri Mareykanku isaga ayaa bilaabay dagaalka laakiin qiimaha uu ku kacayo waxa qaadanaya wadamadeena taasi waxay ka dhigan tahay xiisadda sii kordhaysa ee dagaalka iyo waliba saameynta sida wadamada Carabta ee markii hore Iran ay hayeen hadda ay u gagsay maseegeen wargeyska caanka ah ee Washington Post ayaa sheegay in niyadjab iyo waliba cara aan hore loo arag ay ka dhax aloosan yihiin go'aan qaadayaasha dalalka sare ee qaliijka kuwaasi oo si weyn uga careysan maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump kadib markii Washington ay ku guuldareysatay inay soo afjarto dagaalka ka taagan wadanka Iran sida wargeyska uu ka soo xigtay ila qaliiji ah iyo diblomaasiyiin Saudi Arabia Imaaraadka Carabta Qatar Kuwait iyo Bahrain u dhashay waxa ay soo taraya go'aanada midaysan ee cabashada ay ka qabaan siyaasadda wadanka Mareykanka iyo hanaanka ay ula macaamilayaan dawladahaasi ku yaala gobolka bariga dhexe Trump isaga ayaa horiya dagaalka annagana waxaynu bixinaynaa qiimaha ugu sareeya ee dagaalkaasi ku kaca diblomaasi sare oo magaciisa qariya oo la hadlay wargeyskada Washington Post ayaa arrintan laga soo xigtay taas oo muujinaysa dalalkii Carabka inay kaadsiimo iyo gegsiimo seegaan labadaba mas'uulkan ayaa sheegay in carada laga qabo Washington ay gaartay heerkii ugu sareeyay tan iyo weerarkii wada jirka ahaa ee Mareykanka iyo Israel ay ku jitayeen wadanka Iran bishii Febraayo ee sanadkan xaaladda ayaa ku soo beegmaysa xilli Trump uu marba dhinac u leexinayo isagoo marna hanjabaad u jeedinaya Tehran mar kalena dib ugu laabanaya hanjabaadda isagoo ku doodaya in horumar laga sameeyo wada hadallada dhinaca kale Iran iyo kooxaha ay taageerto ayaa wali lagu eedeynaya in ay gobolka ka wadaan weeraro gantaalo iyo waliba diyaarado aan duuliyo lahayn inkasta oo dalalka qaliijka oo muddo dheer Washington ugu tiirsanayeen baaliri dhinaca amniga iyo waliba inay helaan hub casri ah haddana warbixintu waxay sheegaysaa
in niyadjabka cusubi uu sababay in dhowr dowladood oo khaliija ay bilaabaan in ay ka doodaan faa'iidada uga sii jirta tallaabooyinka ciidamada Mareykanka iyo saldhigyada ku yaala wadamadooda. Dalkaasi ayaa sidoo kale eegaya qaabab cusub oo amni, taasoo haddii ay noqoto wax ka bedeli karaysa istiraatiijiyadda amnigooda, xiisadda iyo dagaalkana aad u sii xoojinaya. xilli dalalkaasi Carbeed ay hadda arkayaan dhibaatooyinka ka soo gaaraya dagaalka, isla markaana wargeyska The Washington Post oo baahiyay halka dhiilada colaadda iyo waliba dhawaqa dowladaha Carabtu uu gaaray oo dhiigbaxa ku soconaya ee dhaqaale aysan u dulqaadan karin. haddana dhinaca kale loolan adag ayaa saaka ka taagan dowladaha Dooxa iyo Tehran dhexdooda. Qatar ayaa la diiday bayaan ay xalay sii daysay, waxaana dowladda Iiraan ay ku doodaysaa in saddex ka mid ah duuliyaasheeda kicinaya diyaaradaha dagaalka ee weeraray saldhigga Al Udeyd iminka ay gacanta ugu jiraan dowladdaasi Qatar. waxaana ay tilmaameen hadalladii xalay ka soo baxay Qatar inaan la aqbali karin, loona baahan yahay in ay aqbasho guddi military oo xaqiiqo raadin ah oo dowladda Iiraan ka tirsan, kuwaas oo gudaha u galaya wadankaasi Qatar. waxaana ay tilmaameen in dowladda Iiraan ay og yihiin halka ay ku sugan yihiin duuliyaasha dowladda Qatar ay iska bariyeelayso in ay gacanta ku hayso. wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu News Agency oo xiganaysa ciidamada qalabka sida ee Iiraan ayaa dowladda Qatar ka codsaday in ay ogolaato koox ka tirsan ciidanka cirka ee Iiraan in ay galaan dhulka Qatar si ay u baaritaan ugu sameeyaan halka ay ku dambeeyeen duuliyaal Iiraani ah oo la leeyahay. codsigan ayaa yimi kadib markii Qatar ay beenisay warar hore oo Tehran ay sheegtay, kuwaasi oo ahaa in saddex duuliye oo Iiraani ah lagu qabtay gudaha wadankaasi Qatar. codsigan ayaa xaddi waxaa soo saaray Maxamed Baaqir Rida oo ah madaxa guddiga baarista ciidamada Iiraan u qaabilsan raadinta dadka la leeyahay. hadalkaasi waxaa baahisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dowladda Iiraan ee IRNA la yiraahdo. Rida ayaa waxa uu sidoo kale sheegay kooxo khubaro ah oo ka tirsan ciidanka cirka ee Iiraan in ay muddo sugayeen baaliri ogolaashiyo ay ku gali lahaayeen Qatar si ay baaritaan ugu sameeyaan goobta ay saameeyeen baaliri halkii ay ugu dambeeyeen duuliyaasha, balse maamulka Qatar uu wali arrintaasi si sax ah u fasaxay. waxa uu dowladda Qatar ka dalbaday inay ogolaato galitaanka koox xaqiiqo raadinaysa oo Iiraani ah halkii ay ku ekaan lahaayeen baaliri oo kaliya soo saarista bayaano ay dowladdaasi ku beeninayso warka dowladda Iiraan ay sii daysay. guddiga caalamiga ah ee Lanqayrta Cas ayaa loogu baaqay inay si degdega kiiskan u soo farageliyaan inta aanay dowladda Iiraan qaadin tallaabooyin xaalka sii xumaynaya. mas-uul Iiraani ah ayaa sidoo kale sheegay in Tehran ay sidoo kale ku guuldareysatay in Kuwait ay hesho xog ku saabsan 4 muwaadin oo Iiraani ah, kuwaasi oo Iiraan uga shakisan tahay in lagu qabtay gudaha wadanka Kuwait. kiiska duuliyaasha ayaa dib u soo shaac saaray ama u soo baxay 2 bishii Maarso. wasaaradda difaaca Qatar ayaa sheegtay in ay soo riday 2 diyaaradood oo nooca Asaqoy 24 ah oo ka yimid dhinaca wadanka Iiraan. Iiraan ayaa xilligaasi sheegtay in diyaaradaha dagaalka lala beegsaday xilli ay weerar ku qaadeen saldhig Mareykan oo ku yaala Qatar. Tehran waxay sidoo kale xaqiijisay meydka duuliye lagu magacaabo Majid Qasimi oo ku dhintay dhacdada in dib loogu soo celiyay wadanka Iiraan isla markaana la aasay. dhinaca kale dagaalka ayaa u muuqanaya in uu xiisadda aad uga sii daray kadib markii tallaabooyinka dowladda Iiraan ay qaaday hadda u ekaadeen mid dowladda Qatar iyagu ay goroda iskula jiraan. taliska dhexe ee qaybta bari ee Mareykanka ee CENTCOM la yiraahdo ayaa soo bandhigay qariirad cusub oo la xiriirta gobolka bariga dhexe. laakiin waxyaabaha qaraar kale waxaa ka mid ah markii gobolada magaalada Gaza iyo sidoo kale daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta lagu laray ama lagu daray dhulka laga qaatay Falastiiniyiinta ee gacanta Israa'iiliyiinta ku jira.
tan waxay abuurtay dood cusub oo ku saabsan in Mareykanka uu si dadban ugu sharciyeynayo dhulka Falastiiniyiintu ay leeyihiin ee u soo haray ee aadka u yar dhinaca Israa'iil waxaana tani ay abuurtay caro aad u xoogan iyo falcelin aad u sareeya sida uu qoray wargeyska caanka ah ee Ra'yul Yawm taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa lagu sheegay inuu soo bandhigay qariirad cusub oo bariga dhexe taasoo marinka Gaza iyo daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiintu ay ku muujinayaan gudaha dhulka Israa'iil loo asteeyay iyadoo aan qariirada lagu darin baa la yiri xad ama qad kala saaraya dhulka Falastiin iyo Israa'iiliyiinta warbixinta ayaa sheegaysa in CENTCOM ay qariirada ku lifaaqday qoraal ay ku baahiso barta X kaas oo la xiriiray socdaal uu taliyaha CENTCOM ku marayo gobolka qariirada ayaa muujinaysa Gaza iyo daanta galbeed iyagoo ku dhex jira aagga loo calaamadeeyay inuu yahay dhulka Israa'iiliyiinta iyadoo aan loo arkin baa la yiri qad xuduuda oo kala saaraya dhulkaasi arrintan ayaa dhalisay su'aalo iyo falcelin siyaasadeed maadaama xaaladda Gaza iyo daanta galbeed ay wali tahay mid ka mid ah arrimaha ugu muranka badan ee gobolka bariga dhexe isla markaana mustaqbalka dhulka Falastiiniyiinta uu qayb muhiim ah ka yahay dadaalada lagu raadinayo xal siyaasadeed oo gobolka sida warbixintu ay xustay 157 dal ayaa hadda aqoonsan dowladda Falastiiniyiinta waxaana ka mid ah Ruushka dhinaca kale Mareykanka ayaa lagu tilmaamay inuu yahay dalka kaliya ee shanta xubnood ee joogtada ah ee golaha ammaanka qaramada midoobay ka tirsan ee aan si rasmi ah u aqoonsan dowlad Falastiiniya qariirada CENTCOM ayaa sidaas darteed loo arkay arrin xasaasi ah gaar ahaan iyadoo ay socoto dooda caalamiga ah ee ku saabsan xuduudaha dhulka Falastiin iyo mustaqbalka xal laba dowladood oo waara tanina waxay ka dhigan tahay in xiisadda labada dhinac ay hadda cirka isku shareeri karayaan iyadoo maalinta Isniinta ah oo berri ah laga baqayo dagaalka gobolka bariga dhexe inuu dib u soo laaban karo haddana wargeyska The New York Times ayaa waxa uu qorayaa in dowladda Mareykanka ay u toogayaan waxa maalintaasi dhacaya waxaana ujeedadu ahayd in xal laga gaaro maalintaasi ka hor arrinta biyaha Hormuz oo shalay Trump uu sheegay in uu damacsan yahay inuu ka dhigi doono mid ka mid ah dalka Mareykanka gobolada ka tirsan goobtaasi oo loo arka aag istiraatiiji ah oo dunida aysan ka maarmin oo dhaqaale haddana waxa ay dowladda Iran ku doodaysaa in haba yaraatee aanay ka tanaasuli karayn sida uu qoray wargeyska caanka ah ee Mareykan The New York Times oo soo xiganaya mas'uuliyiin Mareykan aqalka cad ayaa si wanaagsan u ogbaliyay in uu dhaafi doono waqtiga kama dambaysta ah oo ku saabsan Isniinta iyadoo aan la gaarin ujeedooyinkii ku xusnaa is-afgaradkii MOU-ga oo ay ku jirtay dib u furista marinka Hormuz kaasi oo ahaa heshiiskii lagu gaaray dalka heshiiska loo yaqaano is-afgaradka Islaamabad mas'uuliyiinta ayaa sheegay in aqalka cad uu sidoo kale garwaaqsan yahay in khilaafka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran uu si wanaagsan u bedelay baa la yiri dagaal dhaqaale iyadoo cadaadiska dhaqaalaha cunaqabataynta iyo saameynta suuqa tabartu uu noqday baa la yiri qayb muhiim ah oo ka mid ah isla iskoorimaadka labada dhinac hadda u dhaxeeya warkan ayaa imaanaya iyadoo dadaalada diblomaasiyadda ee lagu doonayo in lagu yareeyo xiisadda Washington iyo Tehran ay wali socdaan balse aan wali la gaarin natiijooyin rasmi ah oo la taaban karo oo dagaalkaasi lagu abiyi karayo dhexdhexaadiyaasha u kala dab qaadaya Washington iyo Tehran ayaa waxa ay ku dadaalayaan sidii loo heli lahaa dagaalkan in la soo gabagabeeyo xilli colaadda gobolka bariga dhexe ay iminka u muuqanayso mid xakamaha goosatay dowladaha Qatar iyo Pakistan ayaa wali ku dadaalaya dhinacyadu inay ku soo laabtaan miiska wada xaajoodka oo sidoo kale la sii aanba qaado geediga wada hadalka sida ay doodooda u dhigaan majalada caanka ah ee Mareykan ee Axios oo soo xiganaysa ilo xog ogaala oo Mareykan ayaa sheegaya in dhexdhexaadiyaasha Pakistan iyo Qatar ay wali gudbinayaan fariimo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran balse aan wali la gaarin wax horumar ah oo la taaban karayo ilo xog ogaala ayaa sheegay in Pakistan ay soo qiimeynta rajo wanaagsan xaaladda hadda ka taagan gobolka
iyadoo isku dayaysa inay dib u abuuraan ama muditaanka wada hadal iyo dardar siyaasadeed oo suuragal ka dhigi karaya dagaalka in la soo ebiyo.